maad maqasheen waxaa ka dhacay magaalada Chicago war foolxum war xanuun badan dhakhtarad la yidhaahdo Dr. Mona Ghosh ayaa maanta lagu xidhay 10 sano oo dowladda iyo caafimaadka ee insurance la shaqeynaysay ka dhacday laakiin dadkay caawin lahayd ayay dhibaato xun u gaysay oo ka mid tahay dumarkii doonayay inay weli caruur dhalaan ee ka qaaday siday u dhali kari lahaayeen waxay kuway ku sheegtay inay cancer qabaan iyagoo cancer qaban waxay ku dadaasheen wax si kale oo xoog iyo wax oo ku saabsan dawo iyo hadday tahay surgery iyo management sida qofka loo badbaadiyo ay marisay jir wadda u baahnayn qofkaa maro ayay marisay oo dhibaatada xanuunkaasi maanta dumarkaas oo doonaya hooyo noqdo oo doonaya weli caruur kale sii dhalo ayay maanta meel ay ka soo noqdaan ma jirto aan dhakhtarad OB-GYN waan ahay waana dareemayaa amba patient baan nahay oo waxaad moodaysaa dadkii aad u tagtay caawimo maad filan inay dhibaato ku keenaan waxaa jira markaan dhakhtarna doonayna noqono aan doonayna caafimaad ka shaqeyno waa muhiim inaad qofkaas aad caawinaysid inaad ku dadaalaysid aad caawisid inaad dhibaato u keenin waxaa lahada do no harm dhaar baad ku maraysaa taasina dhaartaasina wax si dhib yar qofkaasi ay u samaysay oo sababta unay lacag qof noloshiisa qiimo badan lacag so waa war oo naxdin badana murug badana waan dareemaya dumarkaas oo dhibaatada ku dhacday waan ka xumahayna waxaa jira dad oo wanaagsan oo ku dhagaysanaya oo ku arkaya haddaad caafimaadkaaga wax ay kula caawin karaan kula dadaalaya waxaa jira dad aad afgaran weydin dad baa ku dhibaya dumarkan waxay inta badan ka ahaayeen dumar oo magaalo oo ereydaasi oo dad badan oo lacag badan ma haysan waxay yihiin dumar oo inta badan oo minorities ka la yidhaahdo dumar oo ajnabiya oo madoowa oo waxaasoo dhan ah so ayagoo dhibaataysan oo noloshoodaba dadaalaya wax kastaba wax badan pressure saaran ayadan albaabkan kale oo dhibaato u furtay so maanta 10 sano ayaa lagu xukumay inaan la xidho iyo lacag milyan iyo badh inaan lagu xukumo lacagtii ka dhacday insurance iyo waxaasna cidna uma soo celinayso dhibaatadii ku samaysay dad baa isticmaalaya warkan ka soo baxay inay kala fogeeyaan xiriirka oo muhiima oo patientkii qofkii caafimaadkaagii dadaalaya inuu qof helo oo caawiyo dhakhtarkii iyo patientkii so waxaa laga dhigayaa inay dagaal iyo colaadii lasii badiyo laakiin meeshan maanu iman inaan colaad kasii badiyo may waxaan doonay dadka xasuusiyo waad khasab jirkaaga iyo wadaa og waxaa ku haysta dhibaatada ku haysata haddaad dareentid qofkaasi inuu ku fahmayn oo adiguna ma fahmaysid muhiim waa waajibkaaga inaad weydiisid maxaa dhakhtarow laygu sheegay markaa laygu sheegana waxaan sidee dadka inta badan loo caawiyaa hadday dawo tahay hadday wax kale oo test qalab kale isticmaali kartid aad ii diri kartid aan hubsano inuu waxaan yahay hadduu adiguna ahayn qofkii waxaan oo lasii ila wadi kara hawshan yaan kale u tagaa oo waxyaada second opinion qof labaad way fiicantahay qofkaa kale inuu wax kale kuu sheego maybe dhakhtarka kale hore garan and this is not dhakhtarino waxaana waxay ku saabsan tahay qadkoo dhan caafimaadkaaga ku saabsan qofkaa kale markuu si kale maybe u arko waxaan ogaan karnaa meelo kale aan ka fekerin inaan kuu dirno or waxaa loon karaa intaasoo dhan baan tijaabinay runtii wax kale kuma hayno qofkiina waad og tahayna dadkii oo dhan way la dadaaleen niyadoodu wax kastaba ilaahay qoran ma joojin karno
laakiin waa dadaal dhibaato ma aha. waa dadaashay, amarka ilaahayna ma gafayno, laakiin dadaalkaaga qof kale kaa joojiyo ma aha. waxaa jira dad wanaagsan oo ku garab gelaya markaad xanuunsan tahayna, markaana maskaxdaada marmar ma degna. waxaad u baahantahay inta qofku raaco. anigu dhibaatada ma saarayo dumarkan oo dhibaatadan ku dhacday, dhakhtaradan ayaa khaladku dhanba. laakiin especially wadamahan kale ay ka mid tahay Mareykanka, dumarka caafimaadkooda dib ayaa loo rixiya. maalinkaas waad arkaysin. waxaad u baahantahay qofku raaco. waayo because markaad xanuunsan tahay adigu caawimo u baahan tahay. waxaad ma arkaysid marmar se dadka kala nooc kula dhaqmayaan oo ku dhagaysaneen. qofkaagii, ehelkaagii, saaxiibkaaga haddii kula raaci kareen, dee telefoonka qabso oo speakerka daar, so inay kula dhagaystaan. aad u sheegtid waan siiya qofkan waan u ogolay qofkan inuu ila dhagaysto. waa qofkaygii, waa ehelkaygii, waa saaxiibkaygii oo i caawinaya. waan doonayaa inay ka qayb galaan hadalkan aanku maanta aan isu nimaadnay. hadday aad isbitaalka joogtid, waxaa layihahdaa patient advocate. haddaad dareemaysid inaan lagu maqlayn, dhibaatada ku haysataa, waxaana iska bedelayn, waad la hadli kartaa. waxaa jirana qof kastaba qof baa ka sarreeya. hadday tahay oo managerka oo floorkaad ka shaqaynaysid, waxaa jira supervisorka, waxaa jira even dadka departmentkaad ugu sarreeya aad joogtid oo ka wakiila. and then even qofka ugu sarreeya cisbitaalka dhan oo CEO of the hospital ayaa lala tagi kara. waxaa leedahay patient. patientsku ma oga, but it's called chain of command. patientsku way bilaabi karaan inaa caseka qofka kasii sareeya lala tashado, ilaada waxaase dhibaatadaas jirta. iyo dadka caafimaadkaaga ku saabsan oo kula jooga oo tiimkaaga ah ayakaa bilaabi kara casekaas inaa la furo. ogowna dad kuwa wanaagsan maanta dhibaatada ma saarayno, oo dhakhtarnimada caafimaadka waxoo dhan ku dhex jira. waxaa jira dad wanaagsan, ayaguna pressure badan bay ku jiraan. waan ognahay dadku inta badan oo ku jirin cisbitaalka oo healthcarekaasi ma fahmaan siday dib sometimes tahay oo nagu soo baxdaa. annakoo qof manage garaynaya 100 kale wax nagu furan yihiin, laakiin ogow just stack 5 minute qofkii haddaad aragtay intii ka hor dib ugu noqo, u qosol, oo waani, oo weydii maxaad la kulantay, dhibaato may ku haysataa, maxaan kula caawin karaa. adaa qofkii codkooda u noqon karaa, oo codayn karaa, oo u dhawaaqi karaa hadda ay ku hadli kareen. adba patient baad tahay, adba patientkii adigaba naftaada u sheegi karaa waxaana sidan sax maaha, maxay kale aan samayn karnaa. dhaartaasaan marnay waa dhaar muhiima. anigoona dareemi karaa dhakhtarad OB/GYN waan ahay amba waxaan ahay patient, qof oo caafimaadkayga amba aan dad cajiib wanaagsan aan helay, iyo dad aan isku fikrad haysan oo sometimes siday kula dhaqmayaan sax ahayn. markay sax ahaynna de adiguna markaasna markuu qofku markastaba maqlo qofkii dadkii badan oo dhagaysaneen, dadku shaki buu ku beeri karaa. marka qofku shaki ku beerana, qofkii markuu maalintii u daran yahay u baahan yahay dhakhtarka ma tago, noloshooda halis baa ku dhacdaa. oo ayagoo meeshii jooga oo dhibaatada ka badatay ayay ka dhaqaaqan markay u baahnaa inay sii joogaan, ay hawsha sii wadaan, ay yidhaahdaan qof kale igu bedelaa, maxaa kale ay samayn kartiin, sidan sax ma aha. naftaada adiga og waxaa ku haysta sida dhibaatada ku haysato. insha allah dadka wanaagsan baad heli. way jiraan dad wanaagsan ku jira caafimaadka, dadna xunna way jiraan. naagtana ka mid ah. caafimaad baan kulligeena dhumi rajeynaya. dadka dhibaatada saa ku dhacayn oo traumada experienceka la soo maray healthcarekana, maalin kasta isu naxariiso. sidaad isu daweyn kartid, sidaad naftaada dejin kartid xasuuso. kulligeena oo dhan caafimaad baan rajeynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.